madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu la hadlayay beesha caalamka iyo hay'adaha lacagaha bixiya eray ka soo baxay inuu ahaa wax laga yaqyaqsoodo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wuxuu yiri lacag looma baahna caalamkuna awoodi jirto waa lacag waxa uu caalamku ku dhisan yahay waa lacag hay'adaha caalamka waxay bixiyaan waa lacag deeq wadanka markay galayso waa lacag haddii caalamku ku caawinayo waa lacag bilateral supportsku waa lacag madaxweynaheena iyo inta la ku xayndaabanba ma fahminba nidaamka dawliga inuu ku xiran yahay oo uu baahan yahay inay tahay awood jirta lacag haddii la yiraahdo mashaariic xataa laga hadlo wadan kasta lacag buu ku helayaa mashaariicda taa iyada aba ku tusaysa in madaxweyne Cabdiraxmaan iyo inta la socotaana ay ka aradan yihiin maaragtay arrimaha dhaqaalaha iyo wixii aynu caalamka uga baahnayn maaragtay runtii markaad eegto dhaqaalaha adduunka markaynu eegno dhinac kasta aynu eegno awoodda jirta waa dhaqaalaha dabcan taa iyada in ummaddu ay ogaato Mareykanka ayaa ku suntan dhinaca isaga dhaqaaluhuna waa hubka ugu weyn ee maanta adduunka jira haddii dal uu ka dhaqaalo bato si yar oo fudud ayuu ku maamulanayaa adiga iyo resource-kaagaba si yar oo fudud buuna uga dangaaraya yes walaalo waa runta arrintan maaragtay in ciidanka Mareykanka oo maaragtay 4 diyaaradood oo nooca helicopter-ka wata ay Somaliland yimaadeen dabcan waynu arkaynay oo saldhig ciidan maaragtay raba laakiin marka hore madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu ka aradan yahay runtii arrimaha dibadda ama diblomaasiyadda aynu u baahanahay therefore waynu garanaynaa Mareykanku saldhig military inuu rabo waana goobaha maaragtay ama marinbiyoodyada meelaha ugu qaalisan caalamka ayay Somaliland ku taal waayo waxaynu badeenu ay ku xiran tahay badda cas Hindiya dhanka kale markaad eegto afaafka laga gelayo maaragtay Gulf of Aden waxa weeye baabul mabda dabcan Mareykanku saldhig hala siiyo laakiin inagu win solution waxa inoo noqonaysa i'tiraaf inuu ina siiyo oo madaxweynaha aan gaarsiinaya waa inuu bixiyo oo kale investment aad u badan inuu dalka geliyo ama la duqeeyay inay maaragtay ahaayeen Fordo Natasha iyo Afsahan oo saddexdii goobood ee diyaaradaha militariga Mareykanka oo maaragtay noocyada ugu khatarsanaa ay duqeeyeen maaragtay inay saddexda goobood oo nuclear-ka lagu kaydinayay ama lagu sameynayay lagu diyaarinayay ay ahaayeen waxaana loo isticmaalay 14 xabadood oo bamka la yiraahdo bunkers busters oo ah ka dhulka jeexjeexa ee isla markaana maaragtay ciidanka dabcan dagaalkii lagu qaaday Iran maaragtay Mareykanku uu ku qaaday dabcan sidaynu la wada socono Middle East on a fire dowladda Iran waxay ka jawaabtay maaragtay weerarka lagu soo qaaday inaga oo xusayna maaragtay waxay weerartay saldhigyadii military ee Mareykanku uu ku lahaa maaragtay goobaha ama dalka Ciraaq gudihiisa qayb ka mid ah sida warbaahintu ay cadeynaysan maaragtay qaraxyo aad u waaweyn baa dhacay oo Ciraaq gudaheeda maaragtay ay ka fulisay Iran way ballan qaaday inay aar gudanayso ama revenge ay sameynayso Iran waxay duqaysay saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay maaragtay bariga dhexe oo ku yaala Dooxa caasimadda dalka Qatar gantaalada ay ku tuurtay waxay ahaayeen 10 gantaal oo kuwa ridada gaaban iyo ridada dhexe isugu jira sida aqoon-yahan Dr. Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaalayahan ku taqasusay culumta dhaqaalaha iyo siyaasadda shahaadooyinka masterta iyo PhD-dana ka haysta ayaa si weyn u lafaguray dagaalka Israa'iil iyo Iran isagoo oo faaqiday weerarkii habeen hore Mareykanku ku duqeeyay goobihii hubka culus yaalay ee Iran aqoon-yahan Dr. Cabdi Cali Daakir sidoo kale waxa uu xukuumadda Somaliland uga digay in waqti xaadirkan Mareykanka ay siiso saldhig ciidan waxa kale oo uu sheegay halista amni ee mandaqada gaar ahaan kooxaha Xuutigu u leeyahay Somaliland haddii ay soo dhaweysato Mareykanka aqoon-yahan Dr. Cabdi Cali Daakir oo ka hadlaya arrimo badan oo iskugu jira
arrimaha bariga dhexe iyo Somaliland iyo halista amni ee mandaqada ku xeeran iyo dhaqaale xumada soo wajahaysa adduunka haddii uu sii socdo dagaalkani. Waxa uu yiri sidan: dabcan dagaalkii lagu qaaday Iran maaragtay Mareykanku uu ku qaaday dabcan sidaynu la wada socono Middle East on a fire. dowladda Iran waxay ka jawaabtay maaragtay weerarka lagu soo qaaday inaga oo xusayna maaragtay waxay weerartay saldhigyadii military ee Mareykanku uu ku lahaa maaragtay goobaha ama dalka Ciraaq gudihiisa qayba ka mid ah sida warbaahintu ay cadeynaysan maaragtay qaraxyo aad iyo aad u waaweyn baa dhacay oo Ciraaq gudaheeda maaragtay ay ka fulisay warbaahinta caalamka oo dhan baana sheegaysa maaragtay dalka Qatar gudihiisa markaad eegto qaraxyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay oo la arkay oo micnaheeduna uu yahay maaragtay in ay bayskii ku lahaa Mareykanku in ay maaragtay wax ku tuurtay ama ay maaragtay weerartayba dowladda Iran. sidoo kale dowladda Iran meelaha ay beegsanayso waxaa ka mid ah maaragtay goobaha waaweyn oo sida gaarka ah amnigooda loo ilaaliyo oo ciidanka Mareykanku ay ku sugan yihiin iyo saldhigyada military ay ku leeyihiin maaragtay dalalka khaliijka. runtii markaad eegto dagaaladu waxa ay keenaan burburkana waxaa loo qaybiyaa maaragtay burbur ku imanaya nafta bini'aadanka oo naftii bini'aadanku dhimasho iyo naafo ayaa hor imanaysa. burburka ay keenaan qaybta labaad waxa weeye burbur ku yimaada dhaqaalihii wadanka iyo hantidii wadanka ama hantidii regionkaba oo sidaynu la wada soconno dagaaladu marka ay dhacaan waxay yimaada burbur maaragtay ilaahi dhaqaalaha hantidii dalka kaabayaashii dhaqaalaha warshadihii marketkii bangiyadii wixii oo dhan waa ay dumayaan marka waa burburka uu keeno maaragtay dagaaladu oo markaynu eegno dagaaladu burburka ay keenaan ee hantida iyo dhaqaalaha ay ku keenaan waxa weeye economic stagnation baa dhaca oo dhaqaaluhu wuu isxiraya. dabcan sidaynu wada ognahay dhammaanteenba dalka Iran maaragtay awood badan ma laha ama awoodii dagaalka ku sii wadi karto ma laha sidaynu la wada socono aad bay u tahay week ma haysato hub ku filan. dabcan yes way diyaarsanaysay hubka ama macdanta uraniumka waa run laakiin sidaynu la wada socono diyaarado badan ma laha sidaad u aragtaan waa run Ruushka Shiinaha qolada Brexit oo iyaga laftoodu maaragtay awood saas u badan aan lahayn inay riixayaan laakiin xasuusnaada Iran maaragtay awood badan ma laha. Mareykanku sidaynu arkayno ciidamadiisii iyo xerooyinkii uu ku lahaa Middle East-ga wuxuu galiyay maaragtay Istanbul welina Iran way wadaa wixii weerar ah sidaynu arkayno weerarkii xataa hadda ka dhacayay oo la weerarayay Qatar Dooxa la weerarayay waxaad moodaa in laysla ogaabo waayo siday u dhici kartaa maaragtay in dowladda Iran ay u sheegto dowladda Mareykanka in ay soo tuurayso intaas soo gantaal ku soo socdaan xogaa waxaad moodaa in waxyaabo badan ay khaldan yihiin marka dagaalku sidiisaba wuxuu keenaa waa burburkaasna maaragtay regionka kadibna hadda waxaba taaganba waa arrin dhaqaalihii dunidu inuu maaragtay xilmo aniga oo sheegi doona sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada iyo saameynta dhaqaalaha dunida uu ku keenayo haddii hormus la xidhana waa inuu qof kastaaba la socdaa maaragtay dhibaato ka weyni ma jirto 5 trillion dhaqaalaha dunida inay hal mar istaagto maaragtay waa wax aad iyo aad khatarteeda dunidana ku riixaya maaragtay economic collapse oo muuqanaya maaragtay. Iran way ballan qaaday inay aar gudanayso ama revenge ay samaynayso. Iran waxay duqaysay saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay maaragtay bariga dhexe oo ku yaala Dooxa caasimadda dalka Qatar. gantaalada ay ku tuurtay waxay ahaayeen 10 gantaal oo kuwa ridada gaaban iyo ridada dhexe isugu jira. sidaynu ognahay ama caalamkoo dhan ay la socdaanba saldhiggaasi waa saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay bariga dhexe
10,000 oo ciidan ah oo hubkoodii casriga ahaa iyo waxay u baahnaayeen oo dhan wata ayaa jooga. waa maaragtay saldhigga ay weerartay Iran ay weerartay. dabcan waxaynu wada ognahay 100 diyaaradood oo kuwa casriga ah ee dagaalka miyigaga isa siinaya maaragtay shidaalka hawada korkeeda isku siinaya muddo dheer operationka fulinaya ayaa ku sugnaa. waxa weeye taa iyada ah waxay ku tusaysaa maaragtay dagaalka ay qaaday Iran inuu ahaa maaragtay weerar aad iyo aad u khatar ahaa ama maaragtay ciidanka inta leeg in maaragtay loo bareero qof kasta uu qiyaasi karaya. dabcan dagaalku haddii uu ku faafo khaliijka wuu dhaafaya. dabcan sidaynu ognahay ruushku wuxuu taagan yahay hub baaban siinaya Iran. dabcan waxaynu ognahay wadamo badan oo Brexit ka mid ah iyo wadamo badan oo Asia ka mid ah inay taagan yihiin waxaanu siinaynaa hubka ay rabto. haddii dagaalku uusan qaboobin hadda oo diplomatic way aan la aadin ama dariiq solution oo xal aan la aadinna dagaalku inuu isku bedelaa suurtagala dagaal saddexaad in caalamku uu aado khatarteeda ayayna markaa leedahay oo global security iyo peace and security wixii oo dhan ba maaragtay khatar ayay ku jiraan waqtiga xaadirka maaragtay. runtii dagaalka Mareykanku uu ku qaaday dalka Iran dabcan wasiirka gaashaandhigga Mareykanka iyo taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka Ben Hudson iyo Dan Kay ayaa waxay sheegeen maaragtay ama shir jaraa'id ay ku qabteen maaragtay wasaaradda gaashaandhigga ama Pentagonka meesha la yiraahdo iyaga oo maaragtay xaqiijiyay ciidanku maaragtay operationka ama dagaalka ay fuliyeen iyaga oo sheegayna maaragtay in ciidanku weerarka uu qaaday ama operationka uu qaaday ay ku burburinayeen maaragtay 3 goobood uraniumka ay ku bacrimiso Iran si ay nuclear u samaysato. taa iyada ana waxaan jecelahay isla habeenka waxa xaqiijiyay oo ka hadlay maaragtay madaxweynaha Trump oo uu la joogo maaragtay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaragtay gaashaandhigga iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka. dabcan si aynu u fahanno markaas haddaba wasiirka gaashaandhigga Ben Hudson ayaa waxa uu maaragtay sheegay in howlgalkaasi loogu magac daray maaragtay Midnight Hammers oo ah burburkii saqda dhexe maaragtay ee wax la burburinayay oo kale iyadoo oo xilliga la weerarayo maaragtay Iran uu ahaa maaragtay xilli aad iyo aad u dambe oo 2 habeenimo iyo 10 daqiiqo ay ahayd xilliga waqtigeeda. sidaynu la wada soconno Iran in la duqeeyay goobahaas 3 nuclear-ka ama la qarxiyay Iran maaragtay way diiday in ay wax gaareen ama maaragtay dhibaato culus loo geystay. sidoo kale isla wasiirku waxa uu sheegay waxa weeye wasiirka gaashaandhigga in maaragtay ciidanku ay ku mutaysanayaan ama operationka dhacay oo ahaa mid ciidanka geesinimo iyo taariikh fiican ay ku yeelanayaan. maaragtay wasiirku sida oo kale waxa uu cadeeyay maaragtay in arrimo lagu dhaqaaqay dagaalka lagu fuliyay uu ahaa maaragtay arrin qarsoodi ama arrin khiyaamo ahayd oo xeelad military oo kale ayuu u dhigayay iyadoo oo maaragtay ahayd arrin maaragtay dawladda Mareykanku markii hore ay tiri dagaalka waxaanu go'aan qaadan doonaa ilaa 2 weeks caalamka oo dhan taa iyada ah aad moodaysay inuu Trump uu maaragtay dunida oo dhan uu been u sheegayay Iranna sidoo kale uu been u sheegay oo isla markiina haddana dagaal hore laga galay ama la qaaday. dhinac kasta markaad eegto Mareykanku wuxuu leeyahay waanu burburinay maxay ahayd toolay goobihii 3 ahaa ee aanu weerarnay laakiin dalka Iran sidoo kale waxay sheegaysaa inaan wax gaadhay ama wax soo gaadhay aysan jirin maaragtay. yes walaalo warunta arintan maaragtay in ciidanka Mareykanka oo maaragtay 4 diyaaradood oo nooca helicopter-ka wata ay Somaliland yimaadeen
dabcan waynu arkaynay oo saldhig ciidan maaragtay raba laakiin marka hore madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro uu ka aradan yahay runtii arrimaha dibadda ama diblomaasiyadda aynu u baahannahay waayo marka hore waa inaynu fahanno maraykanku waxa uu rabaa waa saldhig military dabcan markaa iyada waxa weeye waa inaynu sawirano risk inteleg ayaa wadanka iman kara ama maxaa garantiin oo riskiga ama khatarta nagu imanaysa damaanad qaadaya therefore waynu garanaynaa maraykanku saldhig military inuu rabo waana goobaha maaragtay ama marinbiyoodyada meelaha ugu qaalisan caalamka ayay Somaliland ku taal waayo waxaynu badeenu ay ku xiran tahay badda cas Hindiya dhanka kale markaad eegto afaafka laga gelayo maaragtay Gulf of Aden waxa weeye baabul mabda dabcan maraykanku saldhig hala siiyo laakiin inagu win solution waxa inoo noqonaysa i'tiraaf inuu ina siiyo oo madaxweynahana aan gaarsiinaya waa inuu bixiyo oo kale investment aad u badan inuu dalka geliyo waa in dawladda miisaaniyadeeda wixii dakhliga dalka u soo xiroodo mooyaane dawladda miisaaniyadeeda la kabi karaa xilli kasta oo bilateral support maraykanku uu u ogolaado Somaliland dawladeeda xilli kasta oo jirta dhanka kale meeshaynu ku naalno oo xasaasiya oo maaragtay meelaha ugu colaada badan ugu dagaalka badan ugu maxay ahayd toolay gaajada iyo faqriga badan in maaragtay uu ilaalinayo for security reason taa iyada abaad moodaa inay win solution ay tahay in la eego haddii laakiin madaxweynuhu heshiis uu galo ama uu la hadlo maaragtay ciidanka maraykanka wuxuu kula hadlaynaa aan la garanaynin taa iyada khatar ayay u keenaysaa wadanka waayo waxaynu ognahay Somaliland meeshay ku taalo iyo xuutiyiintu intay isku jiraan dabcan cidda aynu saldhiga siinayno waa Maraykan wax lagu heshiiyay iyo wax lagu wada hadlayna madaxweynuhu ma sheegin madaxweynaha waxaan horta u sheegayaa marka hore heshiis kasta uu galo inuu baarlamaanka dhigo si ummaddu u aragto waxa heshiiska ee la galayo dabcan madaxweynuhu haddii uu hadda wax qariyay dabcan madaxweynuhu waa inuu xasuusnaado xuutiyiintu hadday arintan ka war helaan Somaliland gebigeeda waa la gubi karaa waa inaad la socoto waayo xuutiyiinta gantaaladoodu waxay gaadhayaan Riyadh iyo Berberana xuutiyiinta waxa u dhow Berbera waxa u dhow Hargeysa u dhow waxa u dhow Burxa u dhow khatarta inta leeg baa ku hortaala waxa weeye wax badan waa inaad iska ilaaliso kana durugtaa maaragtay waxyaabaha badan madaxweynihii adiga ka horeeyay waxaan ku xasuusinayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalka markuu joogay Maraykanku waa u yimi runtii waxa uu ku xiray in maaragtay i'tiraaf wadankana maaragtay wanaagiisa la ilaalinayo lana maalgelinayo Maraykanku uu ballan qaaday arinta inuu fuliyo kalana shaqeynayo waana fahansanahay oo Maraykanka dagaalo iyo waqti adag ama waqti meelo badan uu gooni ku yahay buu ku jira dhanka kale waa inaad ogaato madaxweyne oo miiska ku saaran madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu keenay in Ethiopia ay saldhiga Berberatiri saldhiga halaysiyo dabcan wuxuu ku xiray MOU-ga oo uu yiri i'tiraaf iyo maaragtay wanaag badan ayaanu inaga rabnaa taa iyada ana aday miiska ku saaran tahay Somaliland i'tiraafkeeda inay i'tiraafto Ethiopia iyo MOU-ga walow aad ka gaabinayso waxaan ku xasuusinayaa oo Muuse Biixi Cabdi uu ka diiday dalka Ruushka waxay yiraahdeen base military ma rabnaa Muuse Biixi Cabdi wuxuu yiri waxaan rabnaa in la i'tiraafo annagana waa naga diyaar saldhigi dib uma soo noqon waa dawladda Ruushka aad garanayso dabcan Masar baatimi Masar sidoo kale saldhig bay rabtay Muuse Biixi Cabdi ilaahay khayr ha siiyo aakhiriya adduunka ba ilaahay u naxariisto wuxuu yiri i'tiraaf baanu ku bedelanaynaa i'tiraafna si iyaguna dib dambe uma soo noqon madaxweyne waxa ku hor yaala waxa weeye waa nationka dhan interestkiisa ba ku hor yaala maha wax 4 diyaaradood iyo 3 diyaaradood la qarin karo xuutiyiintu hadday ka war helaan arrimaha aad Maraykanku inuu wadanka soo galay saldhiga la siinayo maxaa damaanad noo qaadaya in wadanka la ilaaliyo khatar kasta la inaga ilaaliyo waayo badan la yiraahdo Gulf of Aden baabul mabda iyo Red Sea
inaynu inagu ilaashano oo ciidankeenu ilaashado oo ciidankeena hub la siiyo oo badda securitygeeda ilaalino ka mandaqada aynu ilaalino ka dunida aynu ku xidhno oo global securityga aynu qayb ka noqono waa arrimaha la rabo Mareykanka iyo Westernka iyo dunidaba in loo soo bandhigo madaxweyne waad ka aradan tahay lama oga heshiiskaad galayso ninka aad wadatay arrimaha dibadda ah waad ogtahay aqoontiisa oo nin ku haftay ama aan garanayn weeye adiga laftaaduna waad sii culusaatay oo saaxiibna weynahay aan kula kaftame waxa weeye wax badan waa inaad dib u celiso Soomaaliland ictiraafkeeda wax kasta madaxweyne ka mudan wadankuna khatar badan buu ku jiraa lama kala garanayo Soomaaliya iyo maxay ahayd toolay Somaliland Soomaaliya oo dhan baa soo gashay waxaan arkayay niman badan oo khatar oo wadanka soo galay madaxweyne looma dul qaadan karo jiritaanka Somaliland hadaanad ilaalinayn wadanka iyo dalkaba khatar ha gelinin waxa weeye talaabo kasta aad qaadayso dastuurka ku siinaya dastuurka waa inaad u marto baarlamaankana waa inaad keento heshiis kasta oo soo cad galayso sidoo kale wasiirku waxa uu xaqiijiyay goobaha ciidanku ama la duqeeyay inay maaragtay ahaayeen Fordo Natasha iyo Afsahan oo saddexdii goobood ee diyaaradaha militariga Mareykanka oo maaragtay noocyada ugu khatarsanaa ay duqeeyeen maaragtay inay saddexda goobood oo nuclearka lagu kaydinayay ama lagu sameynayay lagu diyaarinayay ay ahaayeen waxaana loo isticmaalay 14 xabadood oo bamka la yiraahdo bunkers busters oo ah ka dhulka jeexjeexa ee isla markaana maaragtay ciidanka diyaaradda la yiraahdo B2 loo maaragtay ay tuureysay hubka isaga ah iyo in ka badan maaragtay 12 xabadood oo la yiraahdo gantaalada Tomha oo maraakiibta ama submarineska badda jooga gunteeda laga soo tuurayay oo maaragtay waxaan inay dhanka badda ka yimaadeen waad aragtaa laakiin baddii marka ma saarna ma dul taagna diyaaradana ma dul taagna macnaheeduna uu yahay khalkhal aad u badan xataa inay abuurayeen gantaalada la tuuraya dhanka kale markaad eegto operationka waxaa ka qayb qaatay maaragtay diyaarado iyo miigag casriya oo ka badan 125 maaragtay diyaarado iyo miigag ciidanka Mareykanka uu leeyahay sidoo kale taliyaha guud ee maaragtay ciidanka Mareykanka Dankey ayaa wuxuu sheegay in maaragtay taariikhda uu dagaalkani uu gali doono ciidanku fuliyeen waxa uuna sheegay in diyaaradda B2 ay ridaysay gantaalo la hagayo isagoo oo sheegay in 72 gantaal in badda gunteeda laga soo ridayay oo maaragtay dhanka badda ay ka imanayeen taas oo ku tusaysa maaragtay dabcan sida uu wasiirku u sheegayo dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa burburay oo diyaaradihii maaragtay xataa operationka markay fulinayaan diyaaradihii shidaalka siinayay ama waxay u baahan yihiin siinayay way la socdaan oo maaragtay way barbar socdeen taa iyada aba ku tusaysa maaragtay dagaalka culayska uu lahaa iyo maaragtay operation saacado loogu talagalay inuu socdo maaragtay laakiin aad iyo aad dhaqaale aad iyo aad u badan oo 100 bilyan ah inuu maaragtay ku baxay waana maaragtay deficit kale ama dhaqaale burbur dawladda ku keenaysa oo government deficit ayaa muuqda oo dawladuna hore weyba ugu jirtay oo budgetka dawladda markaad eegto 2025 ka waxa weeye dawladda miisaaniyadeedu waa 6 trillion dakhliga la helayo ee soo xiroonaya ee dawladdu ay sugaysana waa 4 trillion chaaw dawladdu waxay ku jirtaa marka 2 trillion government deficit ah plus haddana dagaal bay aaday dagaalkaasi wuxuuna keenayaa burbur kale iyo dhaqaale badan baa gelaya spending badan iyo cost badan baa imanaya that means dawladdu waxa weeye burbur aad u badan oo dhaqaale ayaa maaragtay hor yaalla waqtiga xaadirka ah sidoo kale wasiirku waxa uu xaqiijiyay goobaha ciidanku ama la duqeeyay inay maaragtay ahaayeen Fordo Natasha
iyo afsahaan oo saddexdii goobood ee diyaaradaha militariga Mareykanka oo maaragtay noocyadii ugu khatarsanaa ay duqeeyeen maaragtay inay saddexda goobood oo nuclearka lagu kaydinayay ama lagu sameynayay lagu diyaarinayay ay ahaayeen waxaana loo isticmaalay 14 xabadood oo bamka la yiraahdo bunkers busters oo ah ka dhulka jeexjeexa ee isla markaana maaragtay ciidanka diyaaradda la yiraahdo B2 loo maaragtay ay tuureysay hubka isaga ah iyo in ka badan maaragtay 12 xabadood oo la yiraahdo gantaalada Tomha oo maraakiibta ama submarineska badda jooga gunteeda laga soo tuurayay oo maaragtay waxaan inay dhanka badda ka yimaadeen waad aragtaa laakiin baddii marka ma saarna ma dul taagna diyaaradana ma dul taagna macnaheeduna uu yahay khalkhal aad u badan xataa inay abuurayeen gantaalada la tuuraya dhanka kale markaad eegto operationka waxaa ka qayb qaatay maaragtay diyaarado iyo miigag casriya oo ka badan 125 maaragtay diyaarado iyo miigag ciidanka Mareykanka uu leeyahay sidoo kale taliyaha guud ee maaragtay ciidanka Mareykanka Dankey ayaa wuxuu sheegay in maaragtay taariikhda uu dagaalkani uu gali doono ciidanku fuliyeen waxa uuna sheegay in diyaaradda B2 ay ridaysay gantaalo la hagayo isagoo oo sheegay in 72 gantaal in badda gunteeda laga soo ridayay oo maaragtay dhanka badda ay ka imanayeen taas oo ku tusaysa maaragtay dabcan sida uu wasiirku u sheegayo dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa burburay oo diyaaradihii maaragtay xataa operationka markay fulinayaan diyaaradihii shiidaalka siinayay ama waxay u baahan yihiin siinayay way la socdaan oo maaragtay way barbar socdeen taa iyada aba ku tusaysa maaragtay dagaalka culayska uu lahaa iyo maaragtay operation saacado loogu talagalay inuu socdo maaragtay laakiin aad iyo aad dhaqaale aad iyo aad u badan oo 100 bilyan ah inuu maaragtay ku baxay waana maaragtay deficit kale ama dhaqaale burbur dawladda ku keenaysa oo government deficit ayaa muuqda oo dawladuna hore weyba ugu jirtay oo budgetka dawladda markaad eegto 2025 ka waxa weeye dawladda miisaaniyadeedu waa 6 trillion dakhliga la helayo ee soo xiroonaya ee dawladdu ay sugaysana waa 4 trillion chaaw dawladdu waxay ku jirtaa marka 2 trillion government deficit ah plus haddana dagaal bay aaday dagaalkaasi wuxuuna keenayaa burbur kale iyo dhaqaale badan baa gelaya spending badan iyo cost badan baa imanaya that means dawladdu waxa weeye burbur aad u badan oo dhaqaale ayaa maaragtay hor yaalla waqtiga xaadirka ah runtii markaad eegto dhaqaalaha adduunka markaynu eegno dhinac kasta aynu eegno awoodda jirta waa dhaqaalaha dabcan taa iyada in ummaddu ay ogaato Mareykanka ayaa ku suntan dhinaca isaga dhaqaaluhuna waa hubka ugu weyn ee maanta adduunka jira haddii dal uu ka dhaqaalo bato si yar oo fudud ayuu ku maamulanayaa adiga iyo resource-kaagaba si yar oo fudud buuna uga dangaaraya dabcan awoodda dunida jirta oo Mareykanka dabcan markaynu eegno global south iyo global north dabcan waxa la isku haystaa waxa weeye waa hoggaanka dunida Mareykankana muddo dheer hogaaminaya ama dhaqaalihii dunida hadday tahay siyaasadii dunida haddii ay tahay maaragtay caalamka in wixii khatar laga ilaaliyo isaga loo daba fadhiya oo multipolaralku dunida xilligii dagaalkii labaad laga soo noqday isagu ku wareegay dabcan sidaynu la wada soconno Brexit nation waxa ay rabtaa marka de-dollarization in ay ka saarto meesha lacagta dollarka oo awoodda uu Mareykanku uu leeyahay taasna maaragtay arrin aynu inagu qof kasta uu eegi karo weeye Brexit nation ay cid la socotaaba awood badan ama awood ay ku diidi karaan
ma laha waayo sidaynu la wada soconno awoodda maanta jirta markaynu eegno waxa weeye waa dhaqaalaha iyo militariga aad leedahay qaybka ah marka haddaad eegto wadamada 10 wadan ee dunida ugu dhaqaalaha badan miiska markaad soo saarto Brexit iyo kuwa kale ee la yiraahdo NATO ama Westernka Mareykanka markaad gooni dhigto qof kasta inuu xasuusnaado 10 wadan Mareykanka keligii ayaa budgetka militariga ka dhaqaala badan ka budget badan oo markaad eegto 10 wadanba ma dhama 330 billion dollars markaad isu geyso markaad Mareykanka keligii eegtana budgetkiisa militarigu waa close to 1 trillion micnaheedu uu yahay awoodda dunida wuxuu haysan karaa boqolaal sano oo soo socota ayaa laga dhex arkaya haddii aan wax yar in xasuusiyo awoodda military ee Mareykanku uu leeyahay maanta waxa ka mid ah in aynu dhammaanteen ba la socotaan 750 base military oo maaragtay hubkii ugu culusaa ciidankii ugu badnaa maaragtay hubkii ugu casrisanaa joogan buu leeyahay waa 750 base military imagine wadamada Brexit nation la yiraahdo hadayna 5 ama 10 saldhig aysan caalamkaba ku lahayn micnaheeduna uu yahay xasuusnaada marin kasta oo badeed iyo marin kasta oo biyood oo caalamka isku xidhaya ama dhaqaalaha dunida uu ku socdo ama ganacsiga dunida uu ku socdo Mareykanka ayaa gacantiisa ay ku jirtaa waana arinta ku tusaysa maaragtay Brexit nation xillimaa la sameeyay mar hore la sameeyay ilaa hadda waxay u muuqdaan meel maaragtay koox group ay ku sheekaysato awood kale oo waraaq inay soo saarto lahayn malaha waxaan qabaa anigu oo aan rumaysnahay awoodda dunida jirta maanta waa Mareykanka waana lacagta aniga oo qof kasta xasuusinaya maalintii u dambeysay oo uu madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu la hadlayay beesha caalamka iyo hay'adaha lacagaha bixiya eray ka soo baxay inuu ahaa wax laga yaqyaqsoodo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wuxuu yiri lacag looma baahna caalamkuna awoodda jirta waa lacag waxa uu caalamku ku dhisan yahay waa lacag hay'adaha caalamka waxay bixiyaan waa lacag deeq wadanka markay galayso waa lacag haddii caalamku ku caawinayo waa lacag bilateral supportsku waa lacag madaxweynaheena iyo inta la ku xayndaabanba ma fahminba nidaamka dawliga inuu ku xidhan yahay oo uu baahan yahay inay tahay awood jirta lacag haddii la yiraahdo mashaariic xataa laga hadlo wadan kasta lacag buu ku helayaa mashaariicda taa iyada aba ku tusaysa in madaxweyne Cabdiraxmaan iyo inta la socotaana ay ka aradan yihiin maaragtay arrimaha dhaqaalaha iyo wixii aynu caalamka uga baahnayn maaragtay